adigoo wax muuqaal aadan duubin, wax muuqaal aadan sameynin ayaad maanta YouTube-ka lacag ka samayn kartaa. maanta waxaan ka hadlaynaa imise lacag ayuu sameeyaa channelka Maxamed Qadar. Daba su'aal intaan muuqaal guda galin waxaan ku weydiinayaa imise lacag ayuu sameeyaa channelkan aad is leedahay. haddaba si aan u ogaano qiimeyntaada waxaad noogu sheegtaa xagga comment hoose. kusoo dhawo muuqaal. السلام عليكم. حديثي جنالك مركو غوريسي فضلوا عن كاع عرسانية جنالك إنا سبسكرايب سارتو سيدو كلاتينات مقالك لاك سارتو. جنالك وحو كسوق بدنا مقالك كسابسن أونلاين بيسنس نوعيدا وكالباحان دمان سيدو كلاتينا غوردو وحن بلاوينا مقالك كسابسن سي آدو نقول لهيد عشيرة أما مقالك كسابسن سي آدو نقول لهيد أب ديزاينر أم ويب ديزاينر مقالة سنن سي آدو لسعطو وعن كاع عرسانية جنالك إنا سبسكرايب سارتو سيدو كلاتينا مقالك أد لاك سارتو. أوكي هديان guda galno muuqaalkeena maanta. muuqaalka maanta waxaan u sameynaa waxay tahay si ay dhalinyaro badan dhiirigelin u noqoto. sidaan ognahay dhalinyarada maanta shaqo la'aan ayaa hayso. sidoo kale muuqaalkan waxaan rajeynayaa inay ku noqoto mid dhiirigelin ah sababtoo ah maanta internetka siyaabo badan ayaa lacag loogu sameeyaa. YouTube-kana waxay ka mid tahay meelaha ugu lacag sameynta badan, gaar ahaan waxay dheer tahay YouTube-ka ma aha goob kaaga baahan investing ama lacag inaad gashato. kaliya waxay kaaga baahantay inaad waqti geliso iyo dadaal adigoo wax $1 adigoo wax lacag aysan kaaga bixin. marka haddii aan fiirino channelka Maxamed Qadar qofka aan aqoonin wuxuu ka hadlaa sportska ama ciyaaraha. channelkiisa haddii aan fiirino saacadaha u dambeeyay muuqaalada uu soo geliyo runtii 24 saac u dambeeyay waxa uu soo geliyo ku dhawaad 10 video ku dhawaad ah. taasina waxaa ka dareemaysaa dadaalkiisa iyo waqtigiisa sida uu uga faa'iidaystay. runtii waxaan rajeynayaa adiga muuqaalkan daawanayna inaad waqtigaaga ka faa'iideysan doonto insha Allah. okay haddii aan galno channelkiisa qiimeynta. channelkiisa waxaa la soo geliyay muuqaalo gaaraya 3794 yani waa 4000 ku dhawaad muuqaalo ah. in aad sameyso waxay u baahan tahay waqti badan. runtiina haddii aad fiiriso yani 4000 video si loo sameeyo ciyaar ma aha. waxaana dhihi karnaa waa TV yani TV-yada Soomaaliyeed wax ma dhaan yani TV-yada isagaaba ka video badan ayaa u maleynaa. okay haddii aan fiirino subscriber uu haysto waa ku dhawaad 5,473,000. sidoo kale viewska uu haysto dhammaan totalkiisa waa 9 milyan. boqolkii milyan ayuu u socdaa. waxa uuna ku xiran yahay wadanka USA. channel typekiisana waa sports. channelkan waxaa la sameeyay 2016. marka haddii aan fiirino channelkii sotonka maalin u dambeysay waxaa kusoo biirtay ku dhawaad 15,000 oo dad ah ama 15,000 oo subscriber ah. sidoo kale channelkii sotonka maalin u dambeysay waxa uu sameeyay ku dhawaad 4 milyan oo views ah ama 3 milyan. inkastoo sudhac yar ayaa ku yimaaday percentage boqolkiiba 2 oo sudhac ayaa channelkiisa ku yimaaday bishan. haddii aan sii fiirino channelkiisa lacaga uu sameeyay isbuucani oo dhan ama bishan oo dhan halkan ayay ku wada yaalaan. sidoo kale haddii aan fiirino daily average-kiisa ama maalintii muxuu helaa muxuusana shaqeeyaa. maalintii channelkiisa wuxuu helaa views ahaan 121,000 yani maalintii in ka badan 100,000 ayuu helaa views channelkiisa. sidoo kale lacag ahaan maalintii wuxuu sameeyaa $30 ilaa $484. isbuucii sidoo kaleeto channelkiisa wuxuu helaa ku dhawaad milyan views ah. wuxuuna helaa lacag dhan $212 ilaa $4,000 ku dhawaad ah. channelkiisana maalin walba waxaa kusoo biirta 500 qof oo subscriber ah. sidoo kale isbuuc walba waxaa kusoo biirta ku dhawaad 4,000 oo subscriber ama 3,500 oo subscriber ah. marka hadirta ayaan fiirinayna lacagta uu sameeyo bishii waa imisa. haddaba qiyaas imisa ayaad is leedahay. okay waxa uu sameeyaa bishii channelkiisa lacag dhan $900 ilaa $14,000 bishii. yani lacagtan waa lacag sax ah ma aha lacag been yani waana qiyaas waa lacag sax ah. haddii channelkiisa bishaas uusan wax muuqaal soo gelin wuxuu helayaa $900. channelkiisa hadduu si sax u shaqeyno ku dhawaad $14,000 channelkiisa uu helaa. waadna ka dareemaysaa channelkiisa sida uu shaqeeyo iyo saacadaha iyo siduu muuqaalada u soo gelinaya dhammaan. haddii aan sii fiirino
bishaan inta views uu helay yani kor ayuu u kacay janaalkiisa sidaad ujeedid. mar ayuu helay 4 milyan, hadeertaan hoos u dhac yar ayaa ku imaaday bishaan 3 milyan 4 milyan ayuu ku socdaa. sidoo kale janaalkiisa 2022 waxaa ku biirtay bisha May 100,000 oo subscriber ah in ka badan. sidoo kale janaalkiisa mar ayaa waxaa ku biirtay 2019 bisha July 100,000. waa yani waa isku mid. marka waad aragteen janaalkiisa waxa uu sameynaya iyo qiimaha uu sameeyo. bil walbana waxaa kusoo biirta 15,000 subscriber ah janaalkiisa. marka muuqaalkeena intaas ayuu ku saabsanaa. waxaan rajeynayaa in waqtigaaga ka faa'iideysan doonto si uu ugu faa'iideystay yarkan dhalinyarada ah. runtii muuqaalada uu sameeyay qof walba uu ka helaa. muhiim ma aha in aad maanta muuqaal aad duubto ama aad soo bandhigto wejigaaga. haddii aad fiiriso janaalka Maxamed Qadar ma aha qof soo bandhiga wejigiisa kaliya, waa codkiisa. dadka waxay ku barteenna waa cod. haddii muuqaaladaada u yihiin muuqaalo ay dadka jecleysanayaan ama muuqaalo wax laga faa'iidaya, runtii youtube-ka waxbaa ka sameyn kartaa, dhaqaalana waa ka sameyn kartaa. sidoo kaleetana waxaan kula wadaagayaa qaabab badan aad maanta youtube dhaqaale lacag ugu sameyn karto adigoo wax muuqaal aadan sameynin. haddii aadan ahayn qof xirfad aadan lahayn, maanta youtube-ka hataa lacag waad ka sameyn kartaa. waxaa jira qaabab badan lacag ugu sameyn karto, waana kula wadaagi doonaa muuqaalada soo socda ayaadna kugu tusi doonaa qaabka aad maanta youtube lacag ugu sameyn karto adigoo wax muuqaal aadan duubin, wax muuqaal aadan sameynin ayaad maanta youtube-ka lacag ka sameyn kartaa. waxaas iyo dhan waan kula wadaagi doonaa iyo qaabab kaloo badan sidaad maanta internet lacag ugu sameyn lahayd. runtii waxaan rajeynayaa inaan janaalkan ka faa'iidi doontaan. haddii ay jiraan qof kale aad u baahan tahay inaad ogaato qiimaha lacag uu youtube ka sameeyo, xag commenti hoose waad noogu soo codsan kartaa si aad muuqaal ugu soo sameyno. waxaan idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum.